You don't know the pain that you caused me and my family. A heartbreaking message for the man who helped cover up the gruesome killing of 22-year-old Leslie Palacio. waxaa inta badan la isku raacay in waa hore ay sahlaneed in uu qof geysto dil kadibna uu ka baxsado cadaaladda balse maanta tiknoolajiyadda oo ah mid aad u horumarsan waxaa dambibaarayaasha u fududaatay in ay soo qabtaan dilaaga geysto dil kadibna ay hor keenaan cadaaladda sababo la xiriiro kaamirooyinka CCTV-ga ee ku xihan goob walbo waxay gacan weyn ka geysteen in ay fududaato sida lagu helo waddo fudud oo ugu dambayn gacanta lagu soo dhigo dilaayada geysta dilalka naxariis darrada ah haddaba muuqaalkeenna maanta waxaan ku soo qaadan doonnaa hadduu eebbe idmo muuqaallo dilal ah oo ay duubeen kaamirooyinka CCTV-ga kuwaasoo tixraac wanaagsan ka siiyey dembibaarayaasha in ay cadaaladda hor keenaan shakhsiyaadkii geystay dilalkan New video and crime scene photos in the murder case of Leslie Palacio. Eric Rangel Ibarra is charged with the murder and right now he remains on the loose. kiiska gabadhan ayaa ka dhacay magaalada Las Vegas gobolka Nevada ee dalka Mareykanka sanadii 2021 Leslie Palacio ayaa ahayd gabar isku darsatay qurux naxariis iyo horumar waxayna ahayd gabar xaqiiqdii aad u dadaal badan iyadoo wax ka baran jirtay mid ka mid ah goobaha lagu barto caafimaadka waxayna aad u jeclayd in ay noqoto dhakhtarad dadkii aqoonta u lahaa gabadhan ayaa sheegeen in mustaqbalkeeda uu hagaagsanaa balse nasiib darro waxaa nolosheeda soo gebagabeeyey qof ay inta badan siisay kalsoonideeda wuxuuna ahaa saaxiibkeeda oo lagu magacaabo Eric Rangel Ibarra balse sidee wiilkan ugu dhiiraday in uu ugu dambayn dil u geysto saaxiibtiisa marka hore aan ogaanno xiriirka ka dhexeeyey labada qoys ay ka soo kala jeedeen labadan dhalinyaro sida ay tibaaxeen dad aqoon buuxda u lahaa qoysaskan waxay sheegeen in labadan qoys ay in muddo ah is yaqaaneen waxaana halkaas ka cad in ay ahaayeen dad aad isku fahmay oo innaba wax shaki ah iska qabin waxaana sidoo kale la soo wariyey in Eric ay soo korisay hooyada dhashay gabadhan Eric Rangel Ibarra ayaa si xad dhaaf ah u jeclaa Leslie balse iyada wax dareen ah umay haynin habeenada ka mid ah wuxuu Eric ka codsaday Leslie in ay ku soo caawiyaan magaalada inkastoo gabadhan ay inta badan ku mashquulsanaan jirtay waxbarashadeeda haddana waxay habeenkaas Eric ka ogolaatay in ay la soo qaxwayso intaa kadib waxay soo galeen mid ka mid ah maqaaxidaha ku yaalla magaaladan kadibna waxay wakhti fiican ku qaateen maqaayadan iyagoo halkaas ku cabbay cabbitaanno balse sida mar dambe la soo ogaaday waxaa habeenkaas cabbitaanka cabtay keliya Leslie halka Eric uu ka cudur daartay inuu cabbo cabbitaan inta ay ku sugnaayeen maqaaxidan waxay dhanka kale Leslie farimo isweedaarsanayeen walaasheeda ka weyn oo lagu magacaabo Kelly iyadoo uga sheekaynaysay wakhtiga quruxda badan ee isla qaadanayaan Eric balse subaxnimadii ay taariikhdu ku beegneed 29 Agast waxaa gebi ahaanba la waayey Leslie Palacio markii hore waxay qoyskeeda iska dhaadhiciyeen in ay la joogto Eric balse waxay xaaladda xumaatay markii ay ka soo wareegatay saacadooyin badan haddana aan ilaa wakhtigaas gacanta lagu haynin Leslie qoyska gabadhan ayaa aad u murugoodeen waxayna markan isku diyaariyeen raadinta gabadhooda waxay tageen guriga Eric Rangel Ibarra si ay u soo fiiriyaan in ay joogto iyo in kale balse waxay guriga ugu tageen wax ka duwan waxay u socdeen waxay ugu imaadeen hooyada dhashay Eric iyo gabar la dhalatay oo ku guda jira alaab urursi iyagoo damacsanaa inay ka guuraan gurigooda intaa kadib qoyska Leslie Palacio ayaa iska dhaadhiciyeen in ay jirto arrin aan wanaagsanayn waxayna markan qaadeen tallaabo iyagoo wacay isbitaalka magaalada si ay u ogaadaan in halkaas la geeyey gabadhooda waxayna sidoo kale qoyskan la xiriireen laamaha ammaanka iyagoo u sheegay inay ka maqan tahay gabadhooda Leslie Palacio waxyar kadib dambibaarayaasha ayaa bilaabeen raadinta Leslie waxayna taraakin ku sameeyeen moobilkeeda si ay u ogaadaan halka ay joogto waxayna sidoo kale dambibaarayaasha wargeliyeen bulshada in ay gacan weyn ka geystaan raadinta gabadhan maqan Eric Rangel Ibarra ayaa ahaa qofkii ugu dambeeyey ee ay la joogtay gabadhan sidaa daraaddeed waxay dambibaarayaasha markii ugu horraysay ka shakiyeen wiilkan balse Eric iyo aabbihiisa oo lagu magacaabo Jose ayaa goor hore ka tageen gurigooda arrintan ayaa noqotay mid aad u cabsi badan laakiin waxaa la soo helay muuqaal ay duubtay kaamirada CCTV-ga saacadihii ugu horreeyey maalintii la waynayey Leslie oo caddaynaya Jose oo wiilkiisa Eric ka caawinayo soo bixinta meydka gabadhan maqan balse waxaa lagu arkay muuqaalkan kadib markii si fiican loo baaray ayaa madmadow sii geliyey kiiskan Same camera catches Rangel Ibarra and another man, who prosecutors believe is his father, 46-year-old Jose Rangel, dragging a lifeless body from the home and into that same truck. Minutes after, the truck drives off, leaving Rangel hosing off the walkway. waa iska caddeed waxaa ku dhacay Leslie Palacio kadib markii dib loo raacay muuqaalkan gabadhan ayaa la dilay kadibna waxaa lagu soo duduubay buste waxaana laga soo saaray guriga intaa kadibna waxay dib ugu laabteen guriga iyagoo soo nadiifiyey
caddayn walba oo lagu soo tixraaci karay nasiib wanaag dembibaarayaasha ayaa gacanta ku soo dhigeen meydka leslie palacio dharkeeda ayaa aad u wasaqaysnaa waxayna u muuqatay in lagu soo jiiday dhulka dilaaga ayaa aasin meydka gabadhan wuxuuna isaga tegay iyadoo taallo meel cidlo ah cimilada oo ahayd mid aad u kulul meydka leslie palacio ayaa isbeddelay wakhti aad u yar wuxuuna bilaabay inuu qurmo waxaana markan wax la iska weyddiiyey sababta ay ku dhacday in wiilkan uu sidan wuxuushnimada ah u dilo qof ay in muddo ah saaxiibo ahaayeen in kastoo la soo helay meydka gabadhan haddana waxay qoyskeeda aad u danaynayeen in caddaaladda la hor keeno dadkii dilkan u geystay gabadhooda kadib markii la soo helay meydka leslie palacio waxay qaar badan oo ka mid ah asxaabteeda u dhigeen aas oo ay ka soo qayb galeen inta badan dadkii aqoonta u lahaa gabadhan Tonight's gathering just really was an example of how much Leslie was loved. You can see behind me here they took the candles that were used for tonight's vigil and placed them outside her home to spell Leslie.